rabshado ka socda Sweden maalintii afraad oo xiriir ah. Ninkii rabay in uu kitaabka Quraanka ah gubo oo meel uu ku sugan yahay la ogeyn. Dalka Sweden waxaa maalmahanba ka socday mudaharaadyo rabshado wata kadib markii uu dalkaas soo gaaray xatirka siyaasiga reer Denmark Rasmus Paludan. Ninkan oo qorsheynayay in uu gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah meelo kala duwan oo Sweden ka mid ah. Rabshadaha ayaa ka bilowday Linköping galabnimadii Khamiista kadib markii Paludan uu rabay in uu gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah. Booliiska ayaa ku khasbanaaday inay xaaladda isaga baxaan. Xatirka reer Denmark ee hogaaminaya xisbiga Stramkush ee Denmark oo ay ka buuxdo muslim nacayb ayaa hore u gubay kitaabka Quraanka Kariimka ah. Dadyowga reer Sweden gaar ahaan muslimiinta ayaa aad uga carooday in ninkan loo fasaxay dalkooda uuna ku gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah. Waxayna dadku dhigayaan banaanbaxyo wata rabshado. Waxaa la gubay baabuur booliis, waxaa waxyeello soo gaareen dad isugu jira booliis iyo shacab. Sweden waad neceb tahay waa ereyada ay ku dhawaaqaysay mid ka mid ah haweenka banaanbaxayay iyadoo xilligaas ilmeynaysay. Waa kitaabkayaga Quraanka Kariimka ah. Waa reer Denmark. Muxuu halkan u joogaa? Haweeney kale ayaa iyana ereyadan ku dhawaaqaysay iyadoo la yaabanin ninkan loo ogolaaday Sweden. Waxaan rabaa inaan gowraco, nin odayaha ayaa ku qaylinayay isagoo qoorta gacanta ku tilmaamayay. Banaanbaxayaasha caraysan ayaa eedda u weyn saaraya booliiska Sweden iyagoo ku andacoonaya sababta ninkan oo la og yahay in uu daandaansi muslimiinta ku wado loogu fasaxay in uu dalka soo galo. Lama oga meel uu hadda ku sugan yahay isagoo axadda rabay in uu isu imaatina ku qabto magaalooyinka Linköping iyo Norrköping. Dadku waxay dalbanayaan in ninkan Sweden laga saaro. Waa maalinkii afraad oo ay banaanbaxyadan ka socdaan dalka Sweden. Xaafadda ajaanibtu ku badan tahay ee Rinkeby ee caasimadda dalkaas iyo magaalooyin kale sida Malmö ayaa banaanbaxyadan ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay. Booliiska Sweden ayaa ka fikiraya in ay ninkan ka saaraan dalka dibna ugala laabtaan ogolaanshaha uu dalka ku marayo. Jag förstår att allmänheten kan känna sig både otrygg och känna olust inför denna typen av situationer och upplopp. Jag tycker också personligen att det är sorgligt att Rosengård nu, som haft en så positiv utveckling i flera år, drabbas på detta sättet av människor, unga människor som ser våld som en del i upproret mot samhället, och att yttrandefriheten blir en fribiljett till att starta den här typen av upplopp. Men vi tänker snabbt och resolut tillsammans med våra områdespoliser, Malmö stad, samfund och föreningar återskapa den tryggheten för boende och det lugnet som har rådit under lång tid. Jag vill också poängtera att vi kommer inte backa.